madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu maanta isku shaandhayn ku sameeyay golihiisa wasiirada waxa uu magacaabay mas'uuliyiin halka uu kuwa kalena shaqadii ka cayriyay waxa la filayay doorkan inay isku shaandhayntu saameyn mas'uuliyiin fara badan haddaba falanqaynta wararka SAB TV ayaa waxa marti ku ah Professor Cabdi Cali Jaamac oo ahaa agaasimihii hore wasaaradda qorsheynta marka hore Professor ku soo dhawow falanqaynta wararka SAB TV maxay isku shaandhayntani ka bedeli doontaa wada malaynaysa wacyiga siyaasadeed ee ka jira Soomaaliland runtii marka eegto isku shaandhaynta wax cusub oo soo kordhay ama dad cusub wajiyo cusub oo soo kordhay oo sidaas ma jiraan laba wasiir baa meesha laga saaray maxaan ku dhahdaa wasiir arkay teamka laakiin inta kale oo dhan teamka waxay ahaayeen isla teamkiisii buu soo wadaariyay wasiiradii iyo wasiir ku-xigeenadiisii hore marka waxa la oran karaa wax soo socdaana warka ma hayeen laakiin ilaa imika wasiir cusub baan ku arkayay meesha oo dawladdii udub ka tirsanaan jiray marka wax cusub ay ka bedelaysaa ma jirto waxa laga yaabaa inuu uga jeeday xaggan deegaanadan laga taageero wadani oo kale inuu wasiirkaasi ka soo jeeda marka waxa laga yaabaa inuu isleeyahay xagga wax kala qabto laakiin runtii maaha nin ay isku style yihiin isku inta isla qabsanayaan baa waqti dheer qaadanaysa isku sina uma fikiraan isku madrasadna maaha marka la eego xagga siyaasadda marka waxaa laga yaabaa in inta badan inta hore oo dhan isla qabsanayaan baa waqti dheer qaadanaysa ta kale maaha Muuse nin madaxweyne Muuse maaha maxaan ku dhahay nin kijada ku jira marka cid la soo gashana ma ogola marka waxa weeyaan halkaas ay kaliya wax la karisaana ma jirto marka sadaradeed waxa adkaan doonto laga yaabaa in mudranaysa sida wada shaqeynaya in adkaata laga yaabaa ma wuxuu madaxweynuhu ka gaashaamanaya mucaaradka ka jira deegaamada qaarkood si ay dadka qaar u tibaaxayaan ay sheegayaan sidaan soo sheegnay runtii imika waan tilmaanay dee lama oran karo waayo waxa haddii kale anigu waxaan leeyahay hadduu ka gaashaamanayo dee wax soo socda ma sheegin laakiin ilaa imika inta muuqata dee wasiir kaliya oo maxaan ku dhahdaa ay kala maxaan ku dhahdaa aan isku hanaan baahayn isku nidaam baahayn umaleemayno wax badan ka bedelay kala halka arintu gaadhay marka imika way ku adkaanaysaa waxa laga yaabaa oo kale haddii imika wasiirka imika uu keenay cusub ee deegaanada ka soo jeeda hadduu keeni lahaa maalmihii hore ama sanadii hore inuu wax la qaban karo lahaa laakiin imika waa too late marka wax la qaban kara ma jiro marka dhibaatooyin badan oo dadkii umaleemayeen qancin karayo halka la gaadhay marka la eego una maleemayeen isaga laftiisa isla qabsan karaan sidaan hore soo sheegay marka waxaan oo dhan waxaan u arkaa inuu yihiin tactics laba oran karo siyaasadii wax substantial oo macna leh ka bedelaysaa ma jirto wasiiradii hore markaad eegto wixii teamkiisii hore buu isku ayuu kala weydaariyay waxa la wuxuu soo kordhiyay ma jirto anuma qabo inuu diyaar u yahay marna inuu arrinka inuu madaxweyne Muuse golihiisa marna uu ka dhigo gole maxaan ku dhahdaa shacbiyad leh ma doonayo inuu ka dhigo isaga laftiisuna dee maxaan ku dhahdaa ma jecla inuu popular noqdo waxa weeye hogaamiye jecel inuu noqdo unpopularku laba u qaybsamaano midna waa la ixtiraamaa dadooda jeclaanay laakiin waa la ixtiraamaa laakiin ugu daran waxa weeye marka qofka lana jeclaan waayo lana ixtiraami waayo marka unpopularity uu jiraa marka qaarkood baad hogaamiyahan waxaad noqon kartaa hogaamiye aan shacbiyad lahayn laakiin waa inaad noqoto hogaamiye la ixtiraamo marka oo talaabooyinku qaadayo oo dhan marka lagu kalsoon yahay in ay yihiin talaabooyin wadaniya ama matalan aragti dheer ku qotonta aan ficil yar oo gaaban iyo maxaan ku dhahdaa maslaxad yar oo kooban aan ku dhisnayn haddii waxaad qaadi kartaa talaabooyin unpopular oo la jeclay baad qaadi kartaa laakiin waxaan islahayn unpopularity-giisa iyo maxaan ku dhahdaa iyo talaabooyinku qaadayo ku salaysan waxyaalo yar oo iska ficiltana hadii jeer ku saabsan oo kala qaybinaya uun dadkii waddanka ku noolaa oo runtii laga yaabo in fogaadaan sida maanta way cabirayeen rag badan oo waxgarad marka dhinaca kale waxa laga yaabaa imika in arrintan tactica uga jeedaa ay tahay dhinaca kale iska soo horjeeda inta aanu ka soo kaban maxaan ku dhahdaa darbadihii hore haddana darbad kale oo arrin kale lagu mashquulo keen baa laga yaabaa inay ujeedada ugu weyn tahay marka waxa weeyaan imika maxaa commissionkii dee muhiimba maaha imika in laga doodo marka waxa weeyaan waxba laga yaabaa in mustaqbalkan laga yaabo inuu ka fikirayo sidii dee xisbiyey wax loo furi lahaa dabeedna deegaanka laga taageero wadani haddana xisbi kale buga loo samayn lahaa marka
deegaanadan laga taageero xisbiga wadani in haddana iska ilaaliyaan mustaqbalka laba xisbiya buga haddana in loo sameeyo oo haddana maxaan ku dhahdaa noqdaan cid dadka ugu xisbiyada badan leh haddana xisbiya aan waxba taraynin maxaan ku dhahdaa oo loo sameeyo waxaynu naqaanay madaxtooyadu had iyo jeer ilaa xilligii udub ilaa xilligii siilayo marka xisbiyada soo baxayaan halkaasaa laga injineer gareeya marka gaboosaba wada ogeedeenoo waxaa laga hayay cabdilaahi jawaan buu haystaa kii laga hayay berigii annagaa u cid soo saaray berigii dambena waxaa laleeyahay sida warar xoogaa la sheegayaan maxaan ku dhahaa wadani waa la soo saaray gabooso waa reebay marka gaboosoo kale 2 jeer in la reebay gabooso ma cawda runtii oo siyaasi aad runtii aanu jecelahay marka deegaanada laga taageero xisbiga wadani ma waxay noqon doonaan deegaano mar walba laba xisbi loo kala jabiyo dabeedna maxaan ku dhahdaa xisbiye bugana loo soo saaro dabeedna saa ay markaa ku sii haystaan markaa maxaan ku dhahdaa awood ay ku sii haystaan waxaan loo yaqaano jeegaanta oo markaa iyaga laftoodu laga yaabo kalsoonidii ay sii baaba'ayso laga yaabo xisbiga kulmiye laftiisa aan la garanaynin haddii aanay dib u habayn samaynin sida fijaan dambe loogu cabi doono ama loogu shaahayn doono mar dambe iyo inuu muuse laftiisu madaxweyne muuse laftiisu xisbiga kulmiye laftiisa in mar dambe fijaan shaah lagu cabo dhinaca kale waxaad arkaysay isagoo oo maanta guddigiisii fulinta shirinaya marka halkan waxaad moodaysay in dib boorka uga tumayo xisbigii kulmiye oo 2 sano wixii ka dambeeya haddii iminka boorka laga tumi waayo laga yaabo inuu fikirayo inuu noqon doono maxaan ku dhahdaa inuu noqon doono waxaan marka dambe wax manfaca cidna u lahayn oo laga yaabo in laga guuro iminka lafteeda sida kalsoonidu u soo noqoto dhaawaca gaari marka ay eegto xisbiga kulmiye dadkii taageeri jiray oo laga yaabo inaan sida isugu yimaadaan mar dambe maxaan ku dhahdaa koob shaah loogu cabaa inay adkaataba abadu mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Cali Jaamac oo marti ku ahaa falanqaynta wararka SAB TV adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida